aynu ku bilownay Israa'iil ayaa weli duqeyn xoogan ku haysa magaalada Gaza iyadoo sheegtay in ilaa xalay ay duqeysay in ka badan 200 oo bartilmaameed dhimashada labada dhinac ayaa haatan kor u dhaaftay 1600 oo qof 900 Israa'iiliina iyo 788 Falastiiniina ururka Hamas ayaa sheegay inuusan wax waamaana ka gali doonin in ka badan 100 qof oo Israa'iiliina oo afduub ahaan ugu soo qabsaday dhinaca Israa'iil burbur ka baahsan ayaa talada maanta gaadhay magaalada Gaza duqeymahan ayaa imanaya iyadoo Hamas ay ku hanjabtay inay dili doonto maxaabiista Israa'iiliina markasta oo Israa'iil ay duqeyso guryaha Falastiiniinta digniin la'aan Israa'iil ayaa sheegtay inay si weyn u sugtay xadka Gaza isla markaasna ay dadka ka daadgureynayso tuulooyinka xadka u dhow Israa'iil waxa kale oo sheegtay in talaadada maanta ay 1500 oo meyd oo dagaalyahanintii Hamas ahaa ay soo saartay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ku hanjabay in hawlgalka military uu bilaabay uu yahay bilow kaliya isagoo sheegay inuu Hamas burburin doono bariga dhexana uu isbedel ku dhici doono sida uu hadalka u dhigay ciidanka Israa'iil ayaa u yeeray 300,000 oo ciidanka kaydka ah waxaana go'doon la geliyay Gaza taasi oo keentay cabsida in weerar dhulka ahi uu bilaaban doono dhinaca kale xafiiska bini'aadanimada ee qaramada midoobay ayaa sheegay in dad ku dhow 200,000 ay guryahoodii Gaza ka carareen ilaa markii colaadu ay bilaabatay lagana cabsi qabo in biyaha korontada labaduba ay go'doominta darteed go'doominta buuxda ee Gaza lagu sameeyay ayaa mamnuuc ka ah xeerka caalamiga ah sida ay sheegtay afayeenka xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Ravina Shamsandani hadalka afayeenka ayaa yimid kadib markii Israa'iil ay sheegtay inay goynayso korontada cuntada biyaha shidaalka Gaza magaaladaasi galaya kaasi oo ay ku nool yihiin 2.3 milyan oo qof hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in la xaqiijiyay weerar loo geystay 13 goobood oo adeega caafimaadka lagu bixiyo kuwaasi oo ku yaala Gaza hogaamiyaha sare Iran Ali Khamenei ayaa talaadada maanta sheegay in Iran ayna ku lug lahayn weerarkii Hamas ay Israa'iil ku qaaday hase yeeshee uu bogaadinayo waxa ugu yeedhay guuldaradii military iyo tii sirdoona Israa'iil dhinaciisa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay abuurista dowlad Falastiin ay leedahay inay tahay arrin lagama maarmaan ah Putin ayaa intaasi ku daray in dagaalka Gaza ka socda uu yahay guuldarro ku timid siyaasadda Mareykanka ee bariga dhexe